بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وشان يطمنك بشا ديسمبر سنة لبدا كنا لباتان يلبا كسو دوادا وراركي وقودن بيي جمهورية يوغرين يا ورارك أبديتكا مركز إسكاسو دايا إلا أيو أفر قضب أيان هالكن كوغو فاقيدي دونا قضب كي كسو جيدا فضلا كومنتيغا نقول وداك intaanan qodobadaas afartaa ku soo gudbinna fadlan nala joog oo channelka subscribe saar oo muuqaaladii dambe dib u daawo aad baad u mahadsantihiin haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ruushka ayaa uga digay Mareykanka inuu cawaaqib aan la saadaalin karin uu kala kulmi doono haddii uu nidaamka bitiriyasha patriotica u diro Jumhuuriyadda Ukraine qodobka labaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dadka reer Ukraine oo lagu sheegay wakiilada ayaa arbacadii la guddoonsiiyay abaalmarinta xuquuqda aadanaha ugu sareysa ee midowga Yurub ay bixiyaan qodobka saddexaadna waxaad ku maqli doontaan Mareykanka ayaa qarka u saaran inuu ansixiyo una diro Jumhuuriyadda Ukraine beteriga patriotic ee gantaalada nidaamka dalkaasi Mareykanka laga rido sida ay sheegeen saddex sargaal oo ka tirsan difaaca dalkaasi Mareykanka talaadadii qodobka afraad ugu dambeeyana waxaa ka mid ah urur ka kooban 27 wadan ayaa abaalmarin la guddoonsiiyay bishii Oktoobar kuwaasoo lagu sheegay geesiyiinta dalka Jumhuuriyadda Ukraine daawadayaal intaasi waxay qodobadii ugu xasaasisanaa barnaamijka uguna dambeeyay ee caalamka iyo kuwii update-ka ah ee soo dawlacay Jumhuuriyadda Ukraine ruushka ayaa uga digay dalkaasi Mareykanka inuu kala kulmi doono cawaaqib aan la saadaalin karin haddii uu u diro nidaamka gantaalada difaaca patriotica Jumhuuriyadda dalkaasi Ukraine dhanka kale ruushka ayaa uga digay Mareykanka in haddii uu u diro nidaamka gantaalada patriotica ee difaaca hawada inuu kala kulmi doono ayna taasi tahay buu sheegay madaxweynaha dalkaasi ruushka daandaansi oo Mareykanku uu wado taasoo horseedi karta baa la yiri cawaaqib aan la saadaalin karin waa sida warka u dhigay madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin dhanka kale maamulka Biden ayaa isaguna soo gabagabeeyay ayaa la yiri qorshaha nidaamka gantaalada patriotica ee loogu dariyo Jumhuuriyadda Ukraine ugu horaantiina asbuucan ayaa nidaamka difaaca ee hawada loo diri doonaa Jumhuuriyadda Ukraine kaasoo ka caawin doona baa la yiri soo celinta iyo nidaamka hawada ee diyaaradaha dalkaasi ruushka la iskaga difaaci karo oo aan nidaamkii ugu casrisanaa ee uu dalkaasi Mareykanku siiyay Jumhuuriyadda Ukraine intay dagaaladii ka socdeen waxa uu Mareykanku sidoo kale nidaamka difaaca ee gantaalada patriotica u diri doonaa Jumhuuriyadda Ukraine haddii se loo diro maxay uga dhigan tahay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka madaxweynaha dalkaasi andhaho daawadayaal Russia Vladimir Putin nidaamku wuxuu intaas ku sii dari doonaa la yiri in Jumhuuriyadda Ukraine awood cusub u yeelan doonto oo muhiim u ah si ay isaga difaacdo weerarada gantaalada ee cirka uga imaanaya dalkaasi Ruushka waxayna muhiimad u tahay baa la yiri Kremlinka inuu wax yar uu ka qabtay oo kaliya in uu baabi'iyo taageerada reer galbeedka ee xukuumadda Kiev falaqaynta militariga ee Ruushka ayaa sidaas lagu sheegay nidaamka difaaca hawada ee Mareykanka ee loo yaqaano patriotic ayaa muujinaya la yiri taageerada waqti kasta ay Washington la daba taagan tahay Jumhuuriyadda Ukraine xulufada sidoo kale reer galbeedka iyo wadamada ayaa sidoo kale sheegay in jiilaal adag oo dheer ay geli doonto Jumhuuriyadda Ukraine Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu ansixiyo dirida beteriga patriotic ee laga rido gantaalada oo la siin doono Jumhuuriyadda Ukraine ogolaanshaha ayaa la yiri wuxuu u baahan yahay oo kaliya ayaa la yiri in la ansixiyo wuxuu u baahan yahay oo kaliya ayaa la yiri in la ansixiyo taas oo ugu horaantan Khamiistan la ansixin doono saddex sargaal oo Mareykan ayaa sidaas iyaguna u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters dhanka kale waxa la sheegay Washington inay qarkaba u saaran tahay inay ansixisaba beteriyada patriotic ayna Jumhuuriyadda Ukraine la geeyo saddex sargaal oo kale oo ka tirsan oo difaaca Mareykanka ayaa sidaas sheegay iyagoo aad u moodaba sargaalada Mareykanku inay meelo gaar ah ay u kala hadlayaan sida la sheegay talaadadii
ugu dambeyntiina ogolaanshahan codsiga degdega ah ayaa ka yimid alayiri hogaamiyaasha Jamhuuriyadda Ukraine kuwaas oo sheegay in ay quus gabi ahaanba ay ka taagan yihiin ciidamada Ukraine gantaalada aadka u culus iyo hubka culus ee Mareykanka ee uu ridayo Ruushku ayaan sheegay daawadayaal. dhanka kalena ururka ka kooban 27 wadan ee abaalmarinta bishii Oktoobar la siiyay ayaa lagu sheegay dadka geesiyiinta ah ee reer Ukraine. gabadha lagu magacaabo Julia Balchevska oo ah aasaasaha gumaysiga caafimaadka ayaa la sheegay ee Ruushka waa sida dalkaasi loo dhigay taasoo xagga caafimaadka lagu sheegay. gabadhaas lagu magacaabo Angelish iyo mid kale Taria Alexander gabadha lagu magacaabo ayaa iyaguna xuquuqda aadamaha u ololeynayay baa la yiri ama in xuquuq ay hesho Jamhuuriyadda Ukraine. dhanka kale duqa magaalada Miltoves ee wadanka la haysto waa Jamhuuriyadda Ukraine ayaa isaguna ku sugan baa la yiri halka xalfad weyn ayaa la qaban doonaa baa la yiri oo ka dhici doonta Stratford ee dalkaasi Faransa. waxa aanu markhaati ka nahay ayay sheegay midowga Yurub iska caabinta iyo dhiirigelinta muwaadiniinta caadiga ah ay sameynayaan ayay sheegeen iyo allabarigii ugu dambeeyay kaas oo ay sameeyeen baa la yiri dadka reer Ukraine iyo taageerada ay siinayaan caalamka. muwaadiniinta sare ee u taagan baa la yiri inay la kulmaan ciidamada Ruushka kuwaas oo la sheegay in imika aysan waxba ka ahayn markii loo fiiriyay markii Ruushku soo galay laakiin kibirka ayaa la yiri iyo hubkooda ee Ruushka. haweenka dalkaasi Ukraine ayaa lagu sheegay inay ku dhali doonaan saldhigyada metro ee dhulka hoostiisa ku yaala ayaa lagu yiri tirakoob la sameeyay sida ay sheegeen baarlamaanka Yurub. gabadha u hadashay lagu magacaabo Roberta Miltosa daawadayaal. wixii kale ka soo cusboonaada muuqaaladeeda dambe ayaan iskula wadaagi doonaa. fadlan la joojina subscribe saar nabad.